مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. qaadisiya waxay ka mid tahay macaarigtii ugu waaweyneed ee ay muslimiintu galaan, gaar ahaan kuwii lagu jabiyey quwaddii farisiyiinta ee waqtigaas jirtay si islaamka loogu faafiyo dhulkii bilaad faris loo yaqiinay loogana xoreeyo majuustii dabcaabudka ahayd. waxayna dhacday 15kii Shacbaan sanadkii 15aad ee hijriyada, kuna beegan 19 Novembar 636 miilaadiyada. waxaa hogaaminayay xoogagii mujaahidiinta Sacd ibn Abi Waqaas, waxaana lagu qiyaasaa tiradooda 30,000 ilaa 40,000, halka ciidamadii Furus uu hogaaminayay Rustum Farkhazaad, waxaana tiradooda lagu sheegaa 200,000 oo askari, waxaana goobtaas looga dilay wax ka badan 40,000 oo uu ku jiro hogaamiyahoodii. amiirkii mu'miniinta ee Cumar ibn Khattab allaha ka raali noqdee ayaa warqad u soo qoray saxaabigii jaliilka ahaa ee Sacd ibn Abi Waqaas allaha ka raali noqdee, risaaladaas oo ku amraysa Sacd inuu u jahaysto dhankaas iyo qaadisiya, waxaana loo raaciyey inuu Allah u tala saarto shaqadaas una dhiibto amarkiisa oo idil Allah subxaanahu wa tacaala. markii goobtii la isugu yimid ee uu dagaalkii bilowday, waxay muslimiintii muujiyeen geesinimo iyo sugnaansho aan horay loo arag, waxayna ku tilmaami lahaayeen qaar ka mida dadka iimaankoodu uu aadka u liito oo maanta nool, qiso ama sheeko khiyaali ah oo aan waxba ka jirin, waana dhaqanka qaar ummadda ka mid ah oo laga yaaba inay afka ku taagaan jiil Allah subxaanahu wa tacaala uu sharaf saraysa u yeelay, ilaa uu Allah ka yeelay bashar kuwa ugu fadliga badan ambiyada iyo rususha ka gadaal. kani waa Calbaa ibnu Jaxshin al-Cijli oo horay ugu sii socda goobtii dagaalka kululi ka socday, siina jiiraya safkii farisiyiinta, dhaawacyo xoog lehna u geystay ciidamadoodii, halka isagana intaa in la mid ah loo geystay, balse ma jilcin mana isdhigan ee halkii ayuu ka sii waday hardankiisii oo seeftiisii dheereed ayuu ku garaacayay madaxyadii ciidamadii farisiyiinta dabcaabudka ahaa. waxay iska hor yimaadeen Calbaa mid ka mid a fursaantii ama geesiyaalkii farisiyiinta. waxa uu Calbaa la helay gaalkii seef dilaacisay xabadkiisa, laakiin gaalkii ayaa isagoo naflacaari ah seef kala helay Calbaa caloosha, taasoo keentay inay bannaanka u soo saarto mindhicirihiisii ama xiidmihii caloosha. ma isdhigan Calbaa oo waxa uu isku dayay inuu soo qaado mindhicirkiisii bannaanka u soo baxay, balse waa uu tabar dhigay. isla markii waxa uu u dhawaaqay mid ka mida mujaahidiintii ka barbar dagaalamaysay, kaasoo ugu kaalmeeyey inuu ku celiyo mindhicirkii soo daatay, waana u suurta gashay arrinkaas. kadib Calbaa waxa uu calooshiisii ku wada duubay go' si mar kale uu mindhicirku u soo daadan ama u soo bixin, oo waxa uu sii waday dagaalkiisii, balse marka uu dhowr tilaabo qaaday ayuu dhacay maadaama uu aad u dhiig baxay, waxa uuna ku gebiyey isagoo la hardamaya sakaraatulmowtkii. أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابا. waxaa goobta soo gaaray Alqacqaac ibnu Camar, kaasoo inta goobtii dagaalka soo istaagay yidhi yaa ii soo baxaya. waxaa u soo baxay nin ka mida geesiyaalkii farisiyiinta, markaas ayuu Alqacqaac weydiiyey magaciisa. ninkii ayaa sheegay in la yidhaahdo Bahmaan ibnu Jaadaweyh, kaas oo sheegtay dhibaatooyin uu muslimiinta u geystay maalintii Aljisir. isla markiiba waxaa ku booday ninkii Alqacqaac sida libaaxa ugu boodo ugaartiisa, ninkiina halkaas ayuu ku dilay isagoo aan far dhaqaajin gaalkii. dilkaasna waxa uu argagax xoogan ku beeray farisiyiintii, halka uu macnawiyaadka muslimiinta kor u qaaday. gaalkan uu meesha waray Alqacqaac waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ugu sarraysa farisiyiinta, waxa uuna hogaaminayay ku dhowaad 20,000 oo askari. intaa kadib ayuu Alqacqaac ibnu Camar ku celiyey kelimadiisii ahayd yaa ii soo baxaya. waxaa u soo baxay 2 nin oo kan koowaad lagu magacaabo Albayruzaan, halka midka kalena la yidhaahdo Albandawaan. waxaa ku soo darmay safkii Alqacqaac oo soo buuxiyey maadaama ay 2 nin u soo baxeen Alxaarith ibnu Dabyaan, waxaana fowda isdaray Alqacqaac iyo gaalkii Albayruzaan ahaa. isla markiina waa ka takhallusay oo gaalkii waxaa la dhigay goobta dagaalka,
halka uu dusha u ritay alxaaris ibnu dabyaan gaalkii kale ee albandawaan ahaa oo isagana isla goobta ayaa lagu dilay. sidaas ayuu qacqac ku dilay maalinkaas 2 ka mid ah 5tii hogaamiye ee ugu sarreysay farisiyiinta. intaa kadib qacqac ayaa mujaahidiintii amray inay seefaha ku boobaan gaalada oo madaxyada uga guraan. haddaan eegna 4tii wiil ee khansaa waxay muujiyeen maalinkaas wacdaro lama ilaabaan ah, isagoo mid walbaahi tiriyey gabay uu ku guubaabinayo walaalihiisa kale. waxa uu yidhi kii koobaad: يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة مقالة ذات بيان واضحة فباكروا الحرب الضروس الكاحلة وإنما تلقون عمد الصائحة من آل ساسان الكلاب النابحة قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة وأنتم بين حياة وحياة صالحة. horay ayuuna dagaalka u galay isla markiina waa uu shahiiday. waxaa goobta soo galay kii labaad isagoo dhahaya: إن العجوز ذات حزم وجلد والنظر الأوفق والرأي السدد قد أمرتنا بالسداد والرشد نصيحة منها وبرا بالولد فباكروا الحرب حماة في العدد إما الفوز بارد على الكبد أو ميتة تورثكم عز الأبد في جنة الفردوس والعيش الرغد. kama harin walaalkiis oo waxa uu seefta la dhex qaaday cadowgii allah ilaa uu ku shahaado qaata gacmahooda. waxaa ku soo xigsaday walaalkii saddexaad isagoo dhahaya: والله لا نعصي العجوز حرفا قد أمرتنا حدبا وعطفا نصحا وبرا صادقا ولطفا فبادروا الحرب الضروس زحفا حتى تلفوا آل كسرى لفا أو يكشفوكم عن حماكم كشفا إنا نرى التقصير عنكم ضعفا والقتل فيكم نجدة وزلفا. halkaas ayuu isana ku shahaado qaatay. waxaa soo raacay walaalkii afaraad ee ugu dambeeyey isagoo gabaygan tirinaya: لست للخنساء ولا للأخرم ولا لعمر ذي السنان الأقدم إذ لم أرد في الجيش جيش الأعجم ماض على الهول خضم خضرم إما لفوز عاجل ومغنم أو لوفاة في السبيل الأكرم. waxaa warkii la gaarsiiyey hooyadood alkhansaa. markaas ayay ku tiri: allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan, allahaasoo igu karaameeyey in ilmahaygii loo wada dilay isaga dartiis. waxaana allah ka baryayaa inuu jannadiisa nagu wada kulmiyo. waxaa loo keenay sacad ibni abi waqaas maalintaas abi mixjin athaqafi oo khamro soo cabay. waxa uuna amray in la xiro. maalintaasna sacad ibnu abi waqaas waa uu dhaawacnaa oo ma bixin. waxa uuna dagaalka kala socday taliskii uu deganaa. abi mixjin ayaa ku yidhi ibnatu xafsin oo ahayd xaaskii sacad ibnu abi waqaas: iga fur xarigga, haddaan soo laabto waxaan kaa ballan qaadayaa inaan ani isi soo xiro, haddaan shahiidana waa la iga raaxaystay. markaas ayay xariggii ka furtay oo waxa uu qaatay baqashii sacad ibnu abi waqaas oo la dhihi jiray albaqlaa iyo waran. abi mixjin ma weeraro meel ka mida cadowga sufuuftiisa ilaa wuu jebiyaa. markaas ayay dadka dhahayeen: waxani waa malag ayaan u malaynaynaa sida uu waxyeelayo daraaddeed. sacadna waxa uu dhahay: wallaahi hadduusan abi mixjin xirnaan lahayn waxaan dhihi lahaa waa isaga, waxa uu wataana waa baqashii baqlaa ahayd. markii uu dagaalkii soo dhammaaday cadowgiina la jebiyey ayuu yimid oo iskeenay. waxa uuna yidhi: hadda ha la i xiro isagoo dhahaya: لقد علمت ثقيف غير فخر بأننا نحن أكرمهم سيوفا وأكرمهم دروعا سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا وأنا رفدهم في كل يوم فإن عتبوا فسل بهم عريفا وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر بمخرج الزحوفا فإن أحبس فذلكم بلائي وإن أترك أذيقهم الحتوفا. waxa uu arkay hilaal ibnu calafa hogaamiyihii farisiyiinta ee rustum oo baqal ku hoos dhuumanaya. isla markii inta ku booday ayuu baqashiisii boqonta gooyey oo waxay ku dul dhacday rustum oo aanan filayn waxa baqasha ku dhacay. isla markii inta cararay ayuu webiga isku tuuray isagoo badbaado ka raadinaya.
kama harin hilaal inta ka daba tegay oo lugta ka soo jiiday ayuu bannaanka ku dilay isagoo dhahaya allah ayaan ku dhaartaye rustum anaa dilay. halkaas ayayna ku dhammaatay macrakadaas oo waxaa guul muhiim ah ka gaaray muslimiinta. 3 maalin oo dagaal adag socday muslimiintuna ay muujiyeen geesinimo iyo adkaysi xaddhaaf ah. هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا.